munaasabadana shirkadda Telesom ku wareejinaysa $500,000 oo ugu talagaleen dadka ay saameeyeen abaaruhu ayaa lagu qabtay xarunta guud ee shirkadda Telesom taasoo ay ka soo qayb galeen wasiirro ka tirsan xukuumadda gudida abaaraha maamulka iyo saamilayda shirkadda Telesom waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha shirkadda Telesom Cabdikariin Maxamed shirkadda isgaarsiinta Telesom Dar es Salaam Bank Somgas iyo shirkadda Leerka Tag in muddo 3 bilood shaqaaluhu mushaharkooda uu qayb ka mid ah u jaro dadka walaalahooda ee abaartu ay tabaalaysay madaxda shirkaduna ayaguna ay wax ku daraan saamileeduna ay wax ku daraan taas oo markii aan isku geynay noqotay lacag $500,000 ah waxa kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay Faarax Sugaal oo ku hadlayay afka shaqaalaha Telesom iyo Cabdillaahi Baaruud Cige oo isaguna ku hadlayay afka saamilayda Telesom waxaana ay tilmaameen in qadarkaasi lacagta ay bixiyaan ay tahay mid uga sii horeynaysa aakhiro isla markaasina ay diyaar u yihiin inay bixiyaan lacagtan iyo mid ka sii badan si dadkaasi tabaalaysan wax loogu qabto gudoomiye xigeenka gudida abaaraha Sheekh Xasan Cabdisalaan iyo Sheekh Maxamed Aadan oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa u duceeyay shirkadda Telesom marka Telesom runtii maanta deeqda ay bixisay شيء كلية أنا هاي أنا وجوه بكرة راح جزاكم الله خيرا. هل كهات كسر سعرتين وحكوين الله يدين كسر سعر شركة الله كو إلاليو ومدحي الله كو إلاليو وشغالين الله كو إلاليو إلى هاي شركة بركة إيو ربح الله السيادي. وزير كمالية الصومال مروة سمسم عبد آذن وزير كوزارة الجناحسية عمر شعيب وزير كدينتي أوقاف الشيخ خليل عبد الله أحمد هي قدوميها روت الجناحسية محمد شكري حلول أي يجون قوة مع شركة Telesom. هاي حقيقة نيسا إن تذكر نولي ولا دريني أي حوجالو يجين ولا طمقانيا. runtii aad iyo aad bay u wanaagsantahay inaad dareenka la yeelataan waxaana idin ducaynaynaa inay Telesom noqoto insha Allah shirkad hogaamisa shirkadaha Soomaaliland waan idin garab taaganahay waxaanu idinku amaanaynaa ama saamilayda ama shaqaalaha noqoto ama madaxda oo Cabdikariin runtii aad iyo aad uu uga damqada had iyo jeer aad aragto inuu dareen aad u dhow leeyahay bulshada reer Soomaaliland waxaan idinku amaanaynaa oo idinku mahadnaqaynaa runtii oo Ilaahay idinka baryaynaa wax khayr qaba inuu idin soo geliyo halka aad ka soo saarteen shirkadda Telesom ma oo kaliya masaan qabo abaarta oo kaliya ma waxa ka qayb qaata adeegyada kale oo dhan ee maxay tahay runtii bulshadu u baahan tahay runtii wax ku dayasho madan waxaan leeyahay jazakallahu khayr baan leeyahay goobtan barakaysan xaruntii Telesom oo aynu ku gudoomi doono deeqda qiimaha badan ee $500,000 oo runtii ah deeqdii ugu weyneed ee shirkada ay bixisay intii aynu ku jirnay hawlaha abaaraha